بسم الله الرحمن الرحيم. أو حكبرنا نويدينتنا what is a Chinese wall in a business. دربيga dheer ee China ama Chinese wall marka ganacsiga ama shirkadaha la joogo waxaa loo adeegsadaa in xad loo dejiyo ama loo yeelo waaxyaha ka shaqeynaya arrimaha iska hor imaanaya oo ay shirkadaha u qabanayaan macaamiishooda. waxaana loogu talagalaa in lagu dhowro ama lagu ilaaliyo xogaha kala duwan oo ay macaamiisha markaas loo adeegay ay leeyihiin. xogtaas haddii aanan la ilaalin waxa ay keeni kartaa in dadka qaar ay si qalad ah uga faa'iideystaan, midaasoo keenaysa in qolana ay faa'iido hesho qolana ay khasaaro hesho ama faa'iido yar. si aan iskula fahanno qeexidaas aan isla aragno tusaalahan aan dhahno hal shirkad oo investment bank ah ayaa waxa ay ka wada shaqaynaysaa in laba shirkadood oo kala duwan ay midigadato midda kale acquisition, oo isla hal investment banki ayaa waxa uu u wada shaqaynayaa labadii dhinac ee wax kala gadanaysay. midaasna waxa ay keeni kartaa conflict of interest ama waxa ay leeyihiin dana iska hor imaanaya, waayo qofka wax gadanaya waxa uu rabaa inuu lacag yar bixiyo halka qofka wax iska gadayana uu rabo lacag badan. taas ayaa keenaysa inay lahaadaan maslaxado iska hor imaanaya. si marka loo hirgeliyo beecan iyadoo aanan la dulmin dhinacna, investment bank waxa ay samaynayaan Chinese wall oo ah in labada qolo ay ka shaqaynaysa beecan ee wada jooga hal shirkad, midna uu matalayo iibsadaha midna iibiyaha. waxaa ka mamnuuc ah in xog qarsoodi ah ay wadaagaan oo qolo waliba waxaa la rabaa inay ilaaliso sidii ay ku heli lahayd xaqa qofka ay matalayso oo buuxa. gunaanad Chinese wall waxaa looga gol leeyahay in looga hortago in labada dhinac ay wadaagaan xog qarsoodi ah oo keeni karta in hal dhinac uu helo faa'iido dheeri ah oo ka baxsan wixii uu xaq u lahaa. investment bank, conflict of interest, merger and acquisition. fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose oo aan hadda kor uga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markala dira bidmo.